waxaa Cigaal International Airport maanta lagu soo dhaweeyay dhalinyaradii maqalka naafada ka ahaa ee ku soo ciyaaray dalka Djibouti iyagoo matalaya Somaliland waxay ku soo badiyeen 7 gool iyo eber koobkii guushuna iyaga ay soo raacday waxay ku guuleysteen koobkii gobolada Somaliland ee loo qabtay dadka maqalka naafada ka 3 gobol u dhex yaalay oo iyagu runtii guul qurux badan ay ka soo hooyeen goolal qurux badan ay ka dhaliyeen oo tiradoodu aad u badneed halkan lagu soo koobi kareen rajadii kadib waxay tageen Djibouti oo runtii loo qaban qaabiyay oo wasiirka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo Samaroon iyo xiriirku dhamaan iyagu sloog si qurux badan ay u saareen halkaas ku maqnaayeen muddo 7 walaalahaygi sida quruxda badan ugu soo dhaweeyayna runtii waan u mahadnaqayaa runtii koobkii hore ay qaadeen dhiirigelin qurux badan way heleen laakiin kulay baahiyaha bini'aadamku ma dhamaadaan oo hadii dadku baa dhamaadee baahi ma dhamaato ducaale iyo Djibouti sida qurux badan lay noo soo dhaweeyeen macala wasiirku noo daawanay dhalinyaradii ciyaaraha Djibouti aad bay u mahadsan yihiin 7 eber baan ku badinay waan soo laabanay hadda iyaga waan u mahadnaqaynaa diyaaradda waana la soo saaray si qurux badan bay noo soo dhaweeyeen walaalahayga Somaliland maanta si fiican oo qurux badan baad noo soo dhaweeyeen walaalahayga Somaliland buuri waan hor joogtaan haday saxaafad tahay hadday tahay xiriirkii hadday tahay Samaroon hadday tahay wasiirkii hadday tahay madaxweynihii aad baan idinku mahadnaqayaa buur TV-ga astaana si gaar ah u salaamayaa mahadsantiin buur annagu farxad bay noo tahay maanta waxaan ku soo guri noqonay meeshii markii hore aan ka tagnay safarkaasina wax badan buu noo faa'iideeyay oo uu keenay inaan ka faa'iideysano oo ah nidaamka baahiyaha gaarka loogu shaqeeyo loogu adeego xiriirkaas waa la sii weynayn doonaa insha Allah wasaarad iyo xiriir iyo ka shacbi iyo xukuumadba insha Allah waan ka qayb qaadan doonaa halkan waxa ku sugan oo runtii ina soo gaaray kooxdii magaca qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee dadka baahiyaha gaarka qabay ku ciyaarayay kuwaas oo la soo ciyaaray dalka Djibouti soona muujiyay runtii ciyaar aad u qurux badan oo munaasabad ahayd halkaana koobkii ku soo qaaday sideedaba ciyaaruhu waxay ka turjumaan hadba calanka lagu hoos ciyaarayo quruxdeena hadba quruxda ay ciyaaruhu leedahay ayuu dalkaas quruxdiisu noqotaa ciyaaruhuna waa muraayada dal laga daawado hadba horumarkeeda iyo heerka uu marayo dalkaasi waxa kale oo aan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka ciyaaraha oo intuba qayb laxaad la ka qaatay maantana soo dhaweyntoodii wasiirku ka qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna ay ka warqabeen ilaa iyo markii ay baxeen ilaa intay ciyaarayeen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu la dabaal degaynaa waanu farxad baanu kala qayb qaadanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu